kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo idinkaga imaanaya xarunta magaalada caasimadda ee Muqdisho oo aad ka daawanaysaan telefishinka Somali Cable waxaan ahay Cabdulqaadir Umar Cabdullafiidka oo idin la socodsiinaya barnaamijkan gaarka ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee guud ahaan ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya sanadkii tagay ee 2017 goor inta aanan gudo galin barnaamijkayagana waxaan jeclahay in aan u mahadceliyo kaamiramanada iyo farsamayaqaanada telefishinka Somali Cable ee xarumaha Muqdisho iyo London daawadayaal bilba bisha ka dambaysa aan u sii talaabo oo aan sii gadgadoomo oo aan ku tago bishii January ee sanadkii tagay ee 2017 bishaasi Janaayo ee 2017kii waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay uu dalku yeeshay aqal sare ka oo jiritaankiisa sanadkaasi la dareemay ka sokow dhismaha hay'adihiisa aqalkan waxa uu qabtay sharciyo iyo xallin khilaafaadyo markaasi jiray doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee February 8deedii xulistii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre magacaabistii golaha wasiirada iyo meelmarintoodii dhammaan waxay qayb ka yihiin horumaradii la gaaray sanadkii tagay ee 2017 haddaba daawadayaal waxaan jeclahay in aad nala daawataan bilihii Janaayo iyo Febraayo doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliya oo ay ugu horeyso tii Janaayo ee aqalka sare waxaa xigi doona daawadayaal tii February 8deedii ka dhacday hoolka Xalane oo lagu doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo لبان عبد حاشي عبد الله حلبان 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 مصطفى محمود قضح حلبان مصطفى محمود قضح حلبان عبد حاشي عبد الله حلبان عبد حاشي عبد الله حلبان عبد حاشي عبد الله حلبان مصطفى محمود قضح حلبان عبد حاشي عبد الله تي ودنبيسي حلبان عبد حاشي عبد الله وما سنت حتى أنا وحن ترينا waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ku guuleystay codka cabdi xaashi cabdullaahi siduu laba eray uga yidhaahdo halkan بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa ilaahay waxaan ka baryayaa xilka cusub ee ummadda Soomaaliyeed ii dhiibatay inaan ku bilaabo isagoo ka saaray abaarta dalka sida xoog leh ugu baahday oo raxmadiisa u furo nabadgelyo iyo barwaaqana dadka Soomaaliyeed uu siiyo ayaan ilaahay ka baryayaa midda labaad waxaan u mahad celinayaa intay dooratay iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan oo aan ogahay inay qiimeyn sameeyaan mar kastaba waxaan leeyahay waad mahadsantihiin inta aanay dooranna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin nin walaala oo Soomaaliya oo kale ayay doorteen waxaanan
aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ee muddada dheer hadda howlahan ku howlanaa ee saaka halkan ku soo gebagabaynaya waxaan kaleen xildhibaanada u soo jeedinaya i doortay xubnaha kalena inay u doortaan iyaga oo fiirinaya dadka ay rabaan inay dalkan u dhiibaan inay noqdaan kuwo karti waddaniyad iyo daacadnimo ay ku dheehan tahay ayaan ka codsanaya. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه وسلم. مدنيال دارتني ودار دستورية، دستورك واجبيي إن لغو علم لمريو قف كستا أو قبانية حيلك مدحوين النماذا دارتو وحيكا كوبان تهي أفر لدبئوتا أساسية قف دارانيا عدلو دارانيو وحلقو دارانيو يا قراهدا أما بسيقدا waxaa dhaaranayaa maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan ku akhriyi doono. waxaad tidhahdaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u fududeeyo inana aynu noqonno ummad adeecda soomaalina ay guulaysato. بسم الله الحمد لله. dadka Soomaaliyeed dhamaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ku nool guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah. mar kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo, dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى مهله وما أنت كسوك هاي كيني وحان مهد علنا إياه حلي بانا الشرفت له وإس بدل دونك كوا عدكودي إسيين كوا عدكودي إسيين ما أنت حلي بانا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين ربيتان كشعب الصوماليات guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. waa guushaan waa bilawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda core value
ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan caddaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno. in sha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad. inta taas laga gaarayo waa mahadsantihiin. soomaali ha noolaato, soomaali ha noolaato, soomaali ha midoodo. waa mahadsantihiin walaalayaal. waxaan rabaa oon iloobay raalliga ahaada inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad muddo laga joogo soo shaqaynayey. waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynahaygii hore shariif sheekh axmed. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynahayna qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smuuth ah ku wareejiyey xilka. madaxweyne waa mahadsan tahay. allah ku xafido soomaalina, allah xafido. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينه قدوميها بارلمانكا قدوميها أقل كسرة قدومي قعقاندا حلباندا شرفت له وزير هذا يسراكيشا لما انكسوا قبقلياشا بعد الصحافة ما أنت ومالين وين فعلا ومالين وين geedi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guulaysto maanta. waa u hambalyaynaynaa, waxaana u rajaynaynaa guul. ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho. walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii. waana la shaqay doonaa. waa mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kulanka toddobaad ee caqaabka wadajirka ahaa waa noo xiran yahay. marka calaykum calaa barakatillah oo nabade. inta aanan u guda gelin doorashada 2021 waxaa sanadkii tagay ee 2017 dalka ka dhacay doorashooyin dhowr ah oo si habsimo leh u dhacay. waxaana ka mid ah doorashooyinkii galmudug iyo hirshabeelle. doorashadii galmudug oo ka dhacday magaalada Cadaado May 3 sanadkii tagay ee 2017 ayaa waxaa madaxweyne loogu doortay mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf. sidoo kale tii hirshabeelle iyaduna ka dhacday magaalada Jowhar 16 bishii September ee sanadkii tagay ee 2017 ayaa waxaa madaxweyne loogu doortay mudane Maxamed Cabdi Waare. dhanka kale doorashada qof iyo cod ee 2021 waxaa la diyaariyay qorshe howleedka hiigsiga qof iyo cod ee 2021. waxaa kale oo si ku meel gaar ah shahaadooyin loo guddoonsiiyay ilaa iyo 7 xisbi siyaasadeed oo dalka ka jira. xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxay xoogga saartay kamari dhalinta qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha, cadaaladda, sugidda ammaanka, gurmadka abaaraha, la dagaalanka musuqmaasuqa, qof iyo cod doorashada 2021, dowlad wanaagga, adeega bulshada, dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga. haddaba qodobadaasi dhowrka ah oo muddo sanado socon doona ayaa intooda badan bilow fiican laga sameeyay. waxaana hal u dul istaagi doona dhammaan qodobadaasi. waxaan jeclahay inaan ku bilaabo xagga gurmadyada. dowladda Soomaaliya waxay wax ka qabatay gurmadka abaaraha iyadoo la aruuriyay lacag fara badan kuwaas oo isugu jiray deeq 6 milyan ah iyo lacag kale oo si toos ah shacabka Soomaaliyeed looga aruurinayay. dhinaca kale waxaa gurmad loo sameeyay ciidanka xoogga dalka oo sanduuq gaar ah iyaga loo abuuray. waxaa intaas sii dheer kii aan loo kala harin ee loo sameeyay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Zoobe 14 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee 2017. xagga ammaanka ee dowladda ayaa sidoo kale waxay awood badan saartay amniga magaalada Muqdisho. waxaana bishii May ee sanadkii tagay 2017 xukuumadda Soomaaliya ay meel marisay qorshaha xasilinta gobolka Banaadir. waxaa la sheegay in dowladdu ay howlgelisay 1500 oo askari. 11 May sanadkii tagay 2017 shirkii Soomaalida loogu qabtay magaalada London ee caasimadda Ingiriiska ayaa waxaa lagu saxiixay National Security Architecture oo dhigaya in la sameeyo 18,000 oo ciidamada xoogga dalka ah, 4,000 oo ciidamada gaarka ee danab iyo 32,000 oo kuwa booliiska ah.
sidoo kale bishii Agoosto ee sanadkii tagay 2017 waxay dawladdu heshiis la gashay Sheekh Mukhtaar Roowe Cali Abu Mansuur oo horey ugu mid ahaan jiray saraakiisha sarsare ee xarakada Al-Shabaab. bishii December ee sanadkii tagay magaalada Muqdisho waxa lagu qabtay shirka amniga iyo iskaashiga oo beesha caalamka iyo Soomaalida ay ugu wada hadleen arrimo la xiriira amniga, nabadda, siyaasadda iyo horumarinta dalka iyo dadka. inkastoo Mareykanku ay jireen sanadii ay siin jireen ciidamada xoogga dalka, haddana dawladdu waxay markii ugu horeysay sameysay qiimeyn ay ku ogaanaysa tirada saxda ah ciidamada loogu sheegay 26,000 oo askari. waxa kale oo la ogaaday in 30% ciidamadaasi ayna wax uga wadan. waxa inta dheer dib u habeyn lagu sameeyay guddiga qaran ee isku dhafka ciidamada. dawladda Turkiga ayaa saldhig military oo weyn waxay ka furatay magaalada caasimadda Muqdisho, iyadoona lagu tababaray dufcadii ugu horeysay. dawladda Imaaraadka Carabta ayaa iyaduna qayb ka ah wadamada shisheeye ee magaalada Muqdisho ciidamada Soomaalida ku tababaraya. xagga cadaaladda haddii aynu eegno, dawladdu waxay sameysay guddi u kurgala xaaladda maxaabiista iyo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho si wax looga qabto cabashooyin ka soo yeerayay shacabka Soomaaliyeed. taasi natiijadeedana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku cafiyay ilaa 100 qof. haddii aynu eegno xagga xiriirka caalamiga, dawladda Soomaaliya waxay guulo ka soo hoyisay shirkii caalamiga ah ee ka dhacay magaalada London ee caasimadda Ingiriiska. guulahaasi waxaa ka mid ah in qorshaha horumarinta qaranka lagu saleeyo mashaariicda ay maalgeliyaan deeq-bixiyaasha caalamka. sidoo kale dawladdu waxay ku guuleysatay in heshiisyo lala galo dhowr wadan oo ay ku dhibaataysan yihiin maxaabiis u badan dhalinyaro, sida heshiiskii lala galay dalka Hindiya oo in ka badan 10 maxaabiis ah oo ku xirnaa jasiirad ku taala dalkaasi la soo daayay. sidoo kale waxaa xusid mudan in dawladda Soomaaliya ay maxaabiis kale fara badan ay ka soo deysay dalka Ethiopia. waxa ugu dambeysay oo dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay xorriyadiisa dib u siiso boqorka bartamaha oo ah wariye caana. 6 Juun sanadkii tagay ee 2017 dawladda federaalka ah ayaa waxay go'aan ku gaartay in muranka khaliijka ay dhexdhexaad ka yihiin. sidoo kale dawladdu waxay ku baaqday in dalalka muransan la dhexdhexaadiyo. bishii December ee sanadkii tagay ee 2017 dawladda Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale si rasmi ah ula soo wareegtay maamulka hawada dalka oo tan iyo burburkii ay gacanta ku hayeen hay'ado ajaanib ah. munaasabad lagu qabtay caasimadda Muqdisho bishii December ee sanadkii tagay 2017 ayuu madaxweyne Farmaajo ka sheegay in ay sharaf weyn u tahay Soomaaliya dib u soo wareegista maamulka iyo gacan ku haynta hawada Soomaaliya. xagga dhaqaalaha haddii aynu eegno 11 bishii May ee sanadkii tagay 2017 shirkii ka dhacay magaalada London ee caasimadda Ingiriiska ayaa waxaa laga soo saaray heshiis cusub oo lagu bedelay barnaamijkii New Deal-ka. qorshahan cusub waxaa loo bixiyay heshiiska iskaashiga cusub New Partnership. waxaa Soomaaliya lagu hagi doonaa sanadaha soo socda. dawladda ayaa waxay baarlamaanka hor dhigtay hindise sharciyeedyo wax badan ka bedeli kara dhaqaalaha dalka, kuwaas oo qaarkood la ansixiyay, kuwa kalena ay harsan yihiin. golaha shacabka ayaa sidoo kale inta bishii November 13 ee 2017 tagay waxay ansixiyeen sharciga la dagaalanka musuqa. waxaa kale oo jirtay joogteynta mushaaraadka iyo gunooyinka hay'adaha amniga iyo shaqaalaha rayidka. hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa qiimeysay waxqabadka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyadoo la raacay barnaamijka SMB oo ah kormeer ay sameeyeen shaqaalaheeda, taas oo lagu tilmaamay mid lagu qanacsan yahay qaabka maamulka maaliyadeed ee wasaaradda maaliyadda ee sanadkii tagay 2017. dhanka dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa saxinta miisaaniyaddii 2017, xisaab xiridii miisaaniyadihii 2015-2016 iyo diyaarinta soo gudbinta iyo meelmarinta golaha shacabka ee miisaaniyadda 2018. weli daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee guud ahaanba gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay sanadkii tagay ee 2017. bal markaana waxaan jeclahay daawadayaal inaan u jilleecno xagga qaraxyadii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkii tagay ee 2017 oo aan soo qaadan doono kuwa inta badan Soomaalida xusuustooda aanan ka go'in. waxaan ugu horeeya qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii tagay 2017 ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay xilli ay goobtaasi aad u mashquul badnayd, waxaana qaraxaasi ku dhimatay ku dhawaad 400 oo qof iyadoo intaas in ka badanna ay ku dhaawacmeen. haddaba daawadayaal nala daawada qaar ka mid ah muuqaaladii xilligaasi laga duubay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Why you give the lamb to the
gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxani looma kala harin shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda intuba oo waxaaba intaas sii dheer gurmadka dalalka aynu jaarka nahay qaarkood iyadoona toddobaadyadaasi magaalada Muqdisho ay ka soo degeen diyaarado dhowr oo siday dawooyin madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa magaalada Muqdisho si degdeg ah ugu soo diray diyaarad military oo siday gargaar caafimaad iyadoona diyaaradda ay horey u sii qaaday dhaawacyada halista ahaa ee dalka wax loogu qaban waayay xilligaasi kadib maalmo waxa iyadana magaalada Muqdisho sidoo kale soo gaarayay xilligaasi diyaarada ka kala socday wadamada diriska ay nahay sida Djibouti, Kenya iyo Ethiopia oo iyaguna gurmad caafimaad siday qaraxaasi sooba ka dhacay 14 maalin kadib 28 bishii Oktoobar waxa dhacday qaraxii iyo weerarkii isxigxigay ee lagu qaaday hotel Naasahab Lood 2 ee magaalada Muqdisho weerarkan oo ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa isla markaasina lagu dhuftay ilanka hore ee hotelka Naasahab Lood 2 ayaa waxa ku geeriyootay dad gaaraya ilaa 10 qof oo shacab ah kuwa oo ay ku jireen kuwa saarnaa gaadiidkooda xilli goobta ay marayeen waxaana sidoo kale inta goobta laga daadgureeyay dhaawacyo gaaraya ilaa 15 qof oo ay qaadeen gaadiidka gurmadka degdega ah sidoo kale daawadayaal qaraxyadii dhacay sanadkii tagay ee 2017 waxa kamid ah kii ka dhacay barxadda School Bluesiya ee magaalada Muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay xilli ciidamada booliiska isku diyaarinayeen munaasabadda sanad guuradii 74 ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed kusimaha taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliya oo goobta warbaahinta kula hadlay uu qaraxa ka dhacay ayaa xilligaasi hadalladaan ka yiri saakay oo taariikhda 14 bisha 12aad 2017 oo kamid ah maalmaha diyaar garowga dabaaldega December isu diyaariyeen ciidanka booliiska oo ku soo beegan 20 December bisha 20keeda maalinta Arbacada soo socota ah diyaar garowga ayagoo ku jiro oo waqti interval ay ku jiraan jaani waxay haysteen waqti ay quraacunayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushas meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gashnay ciidanku way iska mashquulsanaayeen quraacay cunayeen ciidankii meesha ayagoo tiro kooban oo ciidan meel taagnay isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay arrintaas ayada ma aha arrin maaragtay wax la filaway ma aha ciidanka booliiska Soomaaliya shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihiin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada difaaca argagixisada iyo baryahan ciidanka booliiska howlgallo badan ay booliiska qaadeen argagixiso badan ay qabteen oo waxyaabaha kuwa qaraxyada sameeyay ka mid ahaayeen qolyaha bastoolada dadka kulay ay ka mid yihiin cadeymo buuxa kuwa loo haayay garsoorka la horgeeyay maxkamadda la saaray cadowna waa laga filanay inay wax ka daranba ay sameeyaan runtii laakiin arrintaas waxay ahayd arrin oo hal qof oo soo miidaamiyay oo sameeyay waa wax adduunka dhan ka dhaca waaye wax ceeb ku amaha ciidanka booliiska maanta waxaan dhahay waa wax dhici lahay waaye laakiin ma ahayn wax ayaga xaggooda sababta ay leeyihiin maaha marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd 15 kalena waa dhaawac idaacadaha qaar waxay leeyahay waxaa dhintay tirintaas ka badan annaga waxaan qaranayna maaha xubin naga baxday inaan been sheegno qof oo ilaahay oofsadaan rahay waa nool inaan rahay wax noo kala fikir ma jiraan ciidanka booliiska tirada aan sheegnaa ka dhimatay ka geeriyootay waa shuhada waaye dalkaani u dhimanayeen inta ka badan inay ka dhintaan ay diyaar u yihiin dagaal joogto ay galaan argagixisay la dagaalamaan afar wada ka saac u taagan yihiin arrinta maanta dhacday arrin saas ay ahayd intii dhimatay Allah u naxariisto waxa kale oo la sheegay inuu idaacadaha qaar ay leeyihiin xubin booliiska kamid ah asaas yeeshay kama mid ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu nadiif ka yahay waa argagixiso ka soo galay oo hataa hal maalin argagixiso hataa xafiiska saa ku soo galo inuu ciidanka booliiska Soomaaliyeed kamid noqdo ma qaadan anaga ma qorno ciidanka booliiska ma qortaan dadkaas oo kale argagixisada argagixisay noo tahay
hal maalin qof argagixiso soo galay xataa waxaan ku dadaalnaa inuusan ciidanka booliiska ka mid noqonin qof dembis xukun maxkamad ku soo dhacay guud ahaan daawadayaal waxaan jeclahay barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii tagay ee 2017 ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya inaan intaas ku soo gabagabeeyo waxaana barnaamijkeedii la socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka tan intaan ku kulmi doonana daawadayaal barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagayaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina habboon sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh